waynu qaadanaynaa waanadaas faraha badan ee uu siiyey runtii iyada oo barnaamijkeenu ahaa barnaamij sidan ka dheer waynu soo koobaynaa waqtiga ayaa gaaban xubno muhiim ah oo safar ku jiraan way jiraan iyada dartood baynu u soo koobaynaa marka waxaan ku soo gaabinayaa hadda guddiga waalidka oo ka koobnaa iyagu xubno fara badan sheekh axmed nuur sheekh maxamed saahid falyatafadal mashkuura isaga ayaan ku soo koobayaa waalidka wixii ay ka hadli lahaayeen oo dhan insha allah isaga ayaa si faahfaahsan iyo si koobanba uga odhanaya نحمدك على نعمة التوفيق ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وبعد أنا مقعي وحويان أحمد نور شيخ محمد ساهد هذا بالله شيري وحنكوها الله يا مقع والدين تا برمضة برفض مركب أبو رئيسنا السلام باردين سوق الدنيا دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة إسلامك كذب وحنوم بعد علينا إن الله جل جلاله ينصر تجري دمانتنا هالك نسكن لمانو كذب وحن أمهد علينا يا مسؤولين تهير ديجان قبل دقمو إيوه ددوينها كلا دوان فديا قابتن شرفت له سيجارة وحن أمهد علينا يا وبجوكتا صورتك جلسي دوكسيجن بستان كيسا كنتينا وقت الدير كفكري مرحلة كلا دوان نصامري شيخ خليفنا خير الله سي وحقاق نقول شيء هذا الكاس صار أركيسين وقتها ما سامح يعني بنصيح الله مهمة دي اللي قاعد اللي هرنتي ولا شيء دور كوالدك بنير به مسؤولين تا كلا دونا وحير بعندها يا قرب جوكتنا نير ما سكر تاجي لكن منا كل إيران مايو وحنسوه رئيسين يا قرب جوكتا سيدي مركي هرب اللي نجيري وحال يري nin xaaji aadan afqalooc la yiraahdo Soomaalida hore kamid ahaa gobernimada hawl yar nina kuma helaaye rag horumar doorana waaya hor joogay haasaawo chief iyo hurdo kuma timaade halkan caawa joogna rag baa loo hagaajiyay sheeka dheer baa halka ka wada sheekaas macni waxa weeyaan nimankaas walaalaheena oo kala duwan gudaha joogan dibadda joogan reer burqod jaaliyadeeda ee suurta galiyay arintan waxaan leenahay wixii aad qabateena shukran jaziilan ilaahay xasan miisaanka xasanaadka Allah idinku daro wixii idinka dhibana ku dara waana wax binaha noocaas oo kale oo khayriye loo dhisay oo ummaddu ay ku baranayso markaad dhimataana idin socon doono waa amal saalix aad ka tagteen beebrqod oo waalidiintiisa aan ka mid nahayna waxaan dhahayaa doorkeenu saan arkayseen ee inoo sheegay waxbarashada inteeda badan naga iska leh haddii 100 dhibcood waxbarashadii la siiyey 30 macallinkii iyo dugsigii la siiyey 70kii kale inaga iska leh marka waxa ciyaalkeena ka dhiman waxbarasho oo wax guryaheena kaga dhiman aljiif ka toosno waxba la inoo sheegay hadda koorna waxba la soo sheegay imikana waxba la inoo sheegaya dugsiyadan gaar loo leeyahayna ilmaha wax ka bartay ka duwan dugsiyo badan oo kale dawladda marka la yiraahdo wax walba ayaa suurta galinaysa kan laftiisa hadaysan dawladdu jirin lama dhiseen iyada sameynaysa adeega iyada sameynaysa wax ana shuruucda lagu dhisayo iyada ogolaatay iyada ma garanaysa kuraasti keentay imka kursiga yaalo dhan wax ma garanaysa jaaliyada ay keentay kuma jiro dawladda ayaa bixisay marka waxa la doonayaa dhamaanteen qaybteena waalidka inaan ka soo baxno doorkeena ilmaheena aan ogaano Cabdullaahi Nuur warqadii inuu tusay 10 qayb baan ku leenahay inagu sida hadda ka muuqatay oo layliska ilmaha la soo siiyay isaga inuu ka jawaabo la rabay inaga qayb la inoo soo diray taas waxay u baahan tahay inaga waalidkii inaan wax baranno si aan ilmaha ula xisaabtano waxbarashada dadka waaweyn waa jirtaa meelo badan bay ka socotaa oo kala duwan inaad jiifka iskaga kacdo rag iyo dumarba oo ilmaheena aan la xisaabtano oo waxa aan ku gaadhayno waxaan hiigsanayna adduunku inaga tagay waa aqoontaas sideedaba jahligu waa waxa halkan ina dhigay sayidka qabiiladu ka calacalay wax inoogu wacan waa jahliga United States baa la ninka jaariyada intooda badan ka yimaadeen doctorka oo kale ustaadka khayraalaasiye iyo saaxiibadii meesha ka yimaadeen ama rag kalaba waxa weeyaan United States waa konton dawladood in ka badan weey lagama yaqaan qabiil Soomaalida ama inaga aan meel kale hajinaan waxa ay maskaxdooda daashadeen waa jahliga weey jahliga marka aan ka baxno ka waalid ahaan ubadka aan soo abaabulno aan u soo labisno aan ka warhayno buugtooda aan ilaalino
halka inaga waxbarashada inaga aadan buuxino kan iyo kuwa kale dawladda waxaan u soo gudbayaa mas'uuliyiinta ama heer degmaha ahaadaan oo door fiican ciyaaraya saan ugu dareensanahay kulli idinku aad barkaatigatii ama heer gobol ama heer deegaan waxaan leeyahay wax badan baa inaga dhiman wax badan waa la qabanaya waa sax isbedel baa yimid ma sha Allah ilaahay baa lagu maadiyaa isbedelkani wuxuu suurto galiyay dhaqaaqan kala duwan ama dibad ka imanaya ama gudaha ka socda alxamdulillaah rabbil caalamiin iyaga hadda kuraasta ku fadhiya mas'uuliyiinta waa ka qayb isbedelka oo hadaynan iyagu meesha imanin ama aynan waxa suurto galayeen wax muuna socdeen marka waxaan leenahay dhinaca waxbarashada si guud ahaaneed hal la eego tusaale ahaan waxbarashada si guud la eego dawladdu ha eegto meelaha kulliyadaha ah ee dadka waxbarashada lagu tababarayo hal la eego ha loo soo kordhiyo waxbarashada wax hagaajiya oo dawladda iyo dadka u hagaajinaya waa macallinka haddaan la soo hagaajinin oo sida uu walaalkii hadda sheegay uu lahaa macnaha bile waxaan u sameeynaa macallimiinta aqoontooda inaan kor u qaadno waa wax loo baahan yahay wey waxaan ku soo gaabinayaa hadalka iyagana ku socdo waxaan ka soo bartay waxyaabaha qaarkood anigu matalan Addis Ababa macallimiinta kutaba kulliyada la yiraahdo ku jiray waayaha qaarkood macallimiinta ka yimaado taka la yiraahdo ayaa wuxuu oran jiray ninka mas'uulka ama macallinka aqoontiisu waxay leedahay expire date xilli ay dhamaato hadduunan kobcinin aqoontiisa ruuxu macallinka aqoontiisa haddaan lala soconin jaamiciga aqoontiisa hadduunan sii wadin sida kliniga loo daadiyo aqoonta loo daadinaya wixii baa ku dhex gubanaya waxba iska dhex yaacaya marka markasta dawladdu iyadoo wax fiican samaysay kulliyada qabdaar ka furtay jigjiga ay ka jiraan meelo kale ay ka jiraan kulliyadaha waxbarashada gaar ahaan waxa ka socda dadka ay soo saarayaan oo resource-ga ama meeshii wax looga baahnaa dib ha loo eego way la eegaa laakiin ha la kordhiyo ta kale dawladda waxaan ka codsanaynaa tallaabada ay qaaday dhinaca manaahijta salahaan iyo dhinaca imtixaanaadka in la sii adkeeyo oo wixii khiyaanada la dhigi jiray ee imtixaanku ku dhaqmi jiray in meesha laga saaro waa la isku day badan baa socda imtixaanada soo joognay way ka duwan yihiin kuwa hore kuwa sanadka iman doona ee shahaadooyinka sideedaadka iyo tobnaadkii meesha waa laga saaray waxaan rajo ka qabnaa mas'uuliyiinta aan leenahay ama xukuumadda macnaha ka yimaadaan xagga mas'uuliyiinta ama gaarba ha u ahaadaan si waxbarashada oo hay'anka oo meesha noo joogo walaalkeen waxaan leenahay hal la eego kulliyadaha iyo qaabka imtixaanku u socdo wuu fiican yahay hal la sii hagaajiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa idin mahadcelinayaa dhammaantiin gaar ahaan qoladaas suurto gelisay arrintan ilaahay miisaanka xasanaadka hagu daro hana islihiin waxbaad qabateene sii kordhiya wabilaahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.